kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa kulan ka tirsan horyaalka La Liga dalka Spain waxay garoonkeeda Nou Camp Stadium ku soo dhaweey doontaa kooxda Atletico Madrid shantii kulan dambeeyay ee wada ciyaaraan labada kooxood Barcelona iyo Atletico Madrid laba jeer waxa badisay kooxda Barcelona halka kooxda Atletico Madrid ay ka badisay kooxda Barcelona laba jeer hal jeer barbardhac ay wada galeen labada kooxood kooxda Atletico Madrid ayaa ku jirto kaalinta koowaad ee kala sareynta horyaalka La Liga dalka Spain 76 dhibcood ayay leedahay halka kooxda Barcelona ay ku jirto kaalinta saddexaad ee kala sareynta horyaalka La Liga dalka Spain 74 dhibcood ayay leedahay kooxda Barcelona galabta waxay weey doontaa laba xidig Philippe Coutinho iyo Ansu Fati halka kooxda Atletico Madrid ay weey doonto Lodi iyo Gimenez kaasoo shaqal gelinayo inuu dhaawac ku sheego kulan galabta ee kooxda Atletico Madrid la ciyaari doonto kooxda Barcelona ogeysiiska ciyaarta kulanka Barcelona vs Atletico Madrid tartanka horyaalka La Liga dalka Spain saacad ciyaarta la daawan doono 12:15 daqiiqo galabnimo xilliga Geeska Afrika ayaa la daawan doonaa garsooraha ciyaarta Mateo Lopez u dhashay xulka Spain ayaa dhexayd doono garoonka Camp Nou Stadium ayay ku wada ciyaari doonaan shaxaha macquulka laga yaabo labada kooxood inay ku soo wada galaan haddii aan ku hormarno kooxda Barcelona waxay ciyaari doontaa formation 3-5-2 dhanka goosh waxa ku soo bilaaw doono goolahaymaan Ter Stegen sida daafac Araujo Piqué Lenglet Roberto De Jong Busquets Pedri Jordi Alba Griezmann Messi dhinaca kale haddii aan fiirno kooxda Atletico Madrid waxay ciyaari doontaa 3-5-2 dhanka goosh waxa ku soo bilaaw doono Golay Oblak Savic Gimenez Hermoso Trebar Llorente Koke Lema Carrasco Suarez Correa soo socdaali kulanka xiisaha badan ee galabta wada ciyaari doonaan kooxaha Barcelona iyo Atletico Madrid kooxda ayaa isleedahay 3 dhibcood way qaadi kartaa fikirkaada waa inuu muhiim